ويا اللي هو ابني اللي انت waa ka qarsada ayadu waa la hadlaa waxa dhaha waa dareen dhab ah oo ka imaanaya qalbiga hooyo gabadhii ay dhashay la sumcad dilay lagu xadgudbay oo iyada oo qaawan laga duubay muuqaal anshaxa aan waafaqsanayn maalin adaa banaanka lagu tuuray banaanka ayadoo dhar wadana la tuuray ayadoo baashay siibay igu rida weligii social media ba istaag maanta laakiin gabadhii cadaalad u baahan tahay waa hooyo Xaawo Cusmaan Xaaji waxay la murugaysan tahay dhacdo sabab u noqotay in mustaqbalka gabadheeda uu ku burburay oo iyada oo nin u doonan muuqaalkeeda ah oo la kufsanayo lagu baahiyay baraha bulshada waxay sheegaysaa inay ka hurdi la'dahay mustaqbal seega gabadheeda cadaalad darada ku dhacday iyo in weli ninkii dhibkaas u geystay hadda isaga oo xor ah la qorsheynayo in dalka dibadiisa loo qaado welina uu sii wada xitaa handadaada gabadha maadaama aanay jirin cid ehel iyo tol u ah gabadhan miskiinta ah Soomaali Maxamed ilaa goorme hooysaan ugu oysiinayna wadankeena dhib ku jiro wadankeena ma fiicnaanayo wadankeena saan waa ku hayna hooyaashan saana ugu oysiinayna minorka dadka jilicsanay oo intii dhoorna aheena saananka u yeelanay goorme ka bixi doona dhibaatadan talo hooyadan hadda afkeeda furate wax badan isreebays markii dambe waa aamusuweys afkeeda noo soo furate wixii u tari karna Soomaaliyeey isgarab qabadku waa ku fiicannahay hala garab qabta gabartan insha Allah way jirantay dhahde wallahi gabartii way jirantay dhahde Kenya joogta qof ku caawinooyna malahan anigu maalintii waxay la waasiina maalinta kalena isdabir Soomaalidaada Ilaahay hooyo aabba kaaga dhiga dhooya waalidna meesha ma u joogo walaalna ma u joogo asxaab leeyla joogta ay dhahde ma fahanteen asxaabay nambarkeedan way soo sheegtay qofkii caawin kara caabi hooysaan u murugaysan والله انت فرحت لدمينين كوده marka ilaahay dadkii xaqana arkana dhigo ninkan firiyoskeen qof xildhibaan ah soo bixin dalka dibadiisa loo wadaal asaaba wali si hanjawooyin 100 maraad message li soo diray dhahde anigi hooyadii aheeda qalqal i gelinooya marka iidan dadna malahan adeera malahan qof oo maanta oo ninkaas ka celiyo waay rago u baahnaa dhahda ma fahanteen keeska marka asxaab intaas intii la wadaaga jeclaysto duca iyo wixii aan ku kaalmeen karno aan la garab istaagno nambarkeedan afkeed iyadoo ka sheekanaysa in maqalsiina asxaabay gabar dad u eed badan ku shaabantay ugu fiicantaa laakiin amara ku dhacay wax garab sii waa la waayay wax u heelay waa la waayay ummadda islaamka oo meel walba joogto intaasaa idin sheegaa maanta mid haystaa maanta banaanka isoo bixiyay faham cadaaladee rabta maanta hadii loo kaco fahmo cadaalad way heleen garab waa sii kartiin meesha maanta ay joogto waa ka qaadi kartiin alla ciddii gabadhaas inay wax u qabato rabto cadaalad inay la marto rabto inay wax ii qabato rabto gabadhaas wax iigu qabato gabadhaas walaashooda meesha ku dhibaataysan inay wax u qabato rabto aniga lambarkayga meeshaan ku jiraa furaha waa 658 asxaabtan sharafta leh adduunka leh walaalo lugiya aan caawino qofkan wax ku dhacay imtixaan loo marooya adduunye marka ilaahay ha u booyga dhaayidana marka asxaab intaas antii la wadaag jeclayste inta videoga waxay iskala kulmeen waxaan kaga tagaa fi amaanillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabartaana loo soo duceey insha Allah ilaahay dhibka ka qaad iyada la dhibaatay hadan iyada la dhibkina qabto iyadoo la soo doonto oo nin u doonan ninkan waxaan ku suubiyaa leh video banaanka soo bixiye hadan waa iyada la dhibaataysan iyada la dhib loo geystay marka ilaahay xaqana tusana insha Allah mac salaam asxaabe